السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوداش قيمها بدن وسلامتين مركزتو الدنيا دافيد كجوكتان كسو دوادا برامج كي نولش جلاياشا انت بدن داوداش قيمها بدن برامج كان وحان ديردو كسارنا جلاياش او عانسون الدنيا مركي كوبا انت ماننتو دلاشا داوداش قيمها بدن برامج كان كلي وحان ديردو كسار دونا سيدا جلاياشا أكتر ay taageeraan diinta ay haystaan waxyaabaha ay xiiseeyaan iyo noloshooda gaarka waxyaabaha ku saabsan kaliya ayaan diiradda ku saari doonaa barnaamijka sidaa daraaddeed daawadayaasha qiimaha badan barnaamijkeena caawa waxaan kula fogori doonaa fishaal oo shalay u dabaaldega dhalashadiisa 44aad intaan guda gelin barnaamijkeena daawadayaasha qiimaha badan marka hore kusoo dhawaada janaalkeena fadlan hadday tahay markii kugu horreysay aad soo booqato janaalkeena fadlan subscribe noo saar like saar muuqaalkan waayo dad badan ay gaarayaan aragtadaana comment noogu reeb daawadayaasha qiimaha badan caawa barnaamijkeena waxaan uga hadli doonaa fishaal oo shalay u dabaaldega dhalashadiisa 44aad sidaa daraaddeed jalaagan macluumaadka ugu baahantiin barnaamijkeena ay kaga bogan doontaan marka hore bilowga barnaamijka waxaan kaga hadli doonaa jalaagan iyo noloshiisa wax ku saabsan qaybaha dambe barnaamijkan waxaan uga hadli doonaa jalaagan filmaantiisa ugu sheekada wanaagsan sidoo kale biladaha uu ku guuleystay bal marka aan bilowno jalaagan magaciisa dhabta waxaa lagu magacaabaa Fishaal Krishna Reddy inta badan waxaa loo yaqaanaa Fishaal xirfadiisa waa jalaa sidoo kale waa film qarash gareeya markaan fiirino jalaagan dhererkiisa daawadayaasha qiimaha badan waa 180 cm culeyskiisa waa 73 kg markaan fiirino kalarka indhihiisa waa brown timaha kalarkiisa waa black markaan fiirno waqtiga rasmi ah u dhashay jalaagan waxa u diiwaan gashay inuu dhashtay 29 Agoosto 1977 sidaa daraaddeed daawadayaasha qiimaha badan shalay wuxuu u dabaaldegay dhalashadiisa 44aad markaan fiirino jalaagan wuxuu ku dhashtay meesha loo yaqaan Chennai magaal madax u tahay Tamil Nadu sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan jalaagan Fishaal wuxuu ku tirsan fanka loo yaqaan Kollywood xaruntoodna ay tahay magaalada Chennai daawadayaasha qiimaha badan Fishaal nationality-giisa ama dhalashadiisa jalaagan waa Hindiyaan sidoo kale meesha hadda ku nool yahay waa isla Chennai daawadayaasha qiimaha badan markaan fiirino jalaagan waxbarashadiisa ilaa heerka jaamacadda bachelor ayuu qaatay bal markaan daawadayaasha qiimaha badan aan fiirino jalaagan waqtigu soo galay film jirista daawadayaasha qiimaha badan ogaada jalaagan asigoo aad u dhalin yar ay u suurta gashay inuu aflaamta ka soo muuqdo maxaa yeelay aabihiisa Krishna Reddy wuxuu ahaa film qarash gareey aad loogu dambeeyay sidaa daraaddeed asoo caruur ah wuxuu ka soo muuqdo film lagu magacaabo Jadikata Modi oo la daawaday 1989 sidoo kale waxaa laga lahay dhankaasi Tamil sidoo kale markaan fiirino filmka ugu horeeyay uu maalgeliyo asaa oo hogaamiyay ka sidoo kale film lagu magacaabo Bandiya Nadu sidoo kale waxaa la daawaday filmkan 2013 bal markaan aan soo qaadan xogta ku saabsan filmkiisa daawadayaasha qiimaha badan ninkan aabihiisa hore u sheegnay waa nin caan ah sidaa daraaddeed waxaa lagu magacaabaa Fishaalka aabihiisa waxaa lagu magacaabaa Krishna Reddy sidoo kale waa film qarash gareeya markaan fiirino hooyadiisa waxaa lagu magacaabaa Janaki Devi daawadayaasha qiimaha badan jalaagan waxaa la dhashteen wiil iyo gabar walaalkiis waxaa lagu magacaabaa Vikram Krishna asna waa jalaa sidoo kale waa film qarash gareeya walaashiisna waxaa lagu magacaabaa Aishwarya sidoo kale markaan fiirino daawadayaasha qiimaha badan ninka lagu magacaabo Fishaal diinta u haysta ninkan waa Hindu ama Hinduism waxyaabaha uu jecel yahay hobbigiisa waxaa ka mid ah inuu daansiga ciyaaro daawadayaasha qiimaha badan jalaagan si had u diiwaan gashan ma guursan wali ninkan waa doob daawadayaasha qiimaha badan markaan soo qaadanna Fishaal ma leeyahay waxyaabaha balooda haddaba daawadayaasha qiimaha badan Fishaal sigaar kama cawaa jawaabta waxay noqonaysaa waa maya laakiin daawadayaasha qiimaha badan ninkan wuxuu loof ku yahay alkoholada ama qamriga ayuu aad u cawaa sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan Fishaal waxa aabbo ah ninka caanka film qarash gareeyaha laga dambeeyay qof kale ma ahan waa ninka lagu magacaabo Krishna Reddy sidaa daawadayaasha qiimaha badan Fishaal waxay u suurta gashay asagoo aad u dhalin yar inuu aflaamta ka soo muuqdo 80-aadkii sidaa daraaddeed daawadayaasha qiimaha badan jalaaga asoo hogaamiye ah wuxuu fanka soo galay loo yaqaan Kollywood sanadkii 2004 ayuu fanka soo galay sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan jalaagan wuxuu leeyahay كمباني lagu magacaabo Fishaal Film Factory oo inta badan aflaamta qarash gareyso bal markaan aan soo qaadano daawadayaasha qiimaha badan aflaamta ugu caansan ee Fishaal uu maalgeliyay waxa ugu horeeyay filmka lagu magacaabo Bandiya Nadu oo la daawaday 2013 filmka lagu magacaabo Nana Zagabu oo la daawaday 2014 filmka lagu magacaabo Bujai oo la daawaday 2014 sidoo kale film lagu magacaabo Ambala oo la daawaday 2015 ayuu qarash gareeyay waxyaabaha kala dheeriga daawadayaasha qiimaha badan jalaagan Fishaal aan ka soo qaadan karna waxa ka mid ah kalarka wuxuu ugu jecel yahay balaagi iyo buluug ayuu jecel yahay
markaan fiirno sportiska noocyadiisa kala gedisan wuxuu ugu jecel yahay jalaagan cricketka ay ugu jecel yahay maadaama dhankaasi India caan ay ku tahay markaan fiirno daawadayaasha qiimaha badan jalaayaasha oo taageera waxa ugu horeeya Rajnikanth ninka loo yaqaan Jestole sidoo kale Amitabh Bachchan caldheer ayuu taageeraa sidoo kale ninkan wuxuu taageeraa ninka lagu magacaabo Prakash Raj Soomaali inta badan u yaqaanaan say rabtaa markaan fiirno atrishooyinka wuxuu taageeraa waxa ugu horeysa Madhuri Dixit sidoo kale wuxuu taageeraa gabar lagu magacaabo Sardevi Kapoor sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan markaan fiirno heesayaasha ugu jecel yahay waxa ugu horeeya ninka lagu magacaabo Sharesha Ghoshal ayuu taageeraa daawadayaasha qiimaha badan ninkan jalaa kaliya ma aan sidoo kale waa film qarash gareeyo waa producer sida daraadeed daawadayaasha qiimaha badan sanadkii markii 2015 waxa loo doortay secretary-ga ayaa loo doortay sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan 2017 wuxuu noqday president Tamil film producer ayuu noqday sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan ninkan wuxuu leeyahay shirkado kala duwan sidoo kale dhanka ganacsiga aad ugu xil dheereeya kambaniyal ayuu leeyahay sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan waxyaabaha kala dheerayaan ka soo qaadan karna waxa kamid ah jalaagan inta badan aflaamtiisa action ayuu ku soo bandhigaa sida daraadeed inta badan waxa loo yaqaan action hero ayaa loo yaqaan bal markaan daawadayaasha qiimaha badan waxaan soo qaadan doonaa fishaal iyo abaalmarinada ku guuleystay sidoo kale aflaamtiisa ugu sheekada wanaagsan ayaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena daawadayaasha qiimaha badan jalaagan waxay u suurta gashay inuu laba mar ku guuleysto filmfare laga bixi dhankaas iyo Tamil daawadayaasha qiimaha badan sanadkii 2014 fishaal wuxuu ku guuleystay best actor sidoo kale wuxuu ku qaatay filimkiisa Bandiya Nadu sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan sanadkii 2012 waxay u suurta gashay inuu qaato best actor sidoo kale wuxuu ku qaatay filimkiisa Ivan ayuu ku qaatay bal markaan daawadayaasha qiimaha badan asla fiirina jalaagan iyo aflaamtiisa ugu sheekada wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan jalaagan fishaal aflaamta uu sameeyay aad u badan yihiin laakiin sidaa daraadeed waxaan soo qaadan doonaa 5 film ugu sheekada wanaagsan inta badan xogtan waxaan ka soo xignaa shabakada IMDb Rating oo ah shabakada inta badan aflaamta 10 dhibcood ku qiimeyso sidoo kale xogteeda lagu kalsoonaan kara sidaa daraadeed shabakadan 5 film ay u soo xushay in Suuriya in fishaal ay yihiin 5tiisa film ugu sheekada wanaagsan filimkiisa koowaad waxa lagu magacaabo Iramabut Taray oo la daawaday 2018 filimkan shabakadan waxay siisay 7.7 dhibcood wax loogu qiimeeyo filimkiisa labaad waxa lagu magacaabo Tubarafalan oo la daawaday 2017 filimkan waxa la siiyay 7.6 dhibcood wax loogu qiimeeyo filimkiisa saddexaad waa Bandiya Nadu oo la daawaday 2013 filimkan 10 dhibcood wax loogu qiimeeyo waxa la siiyay 7.2 filimkiisa afraad waa Ivan oo la daawaday 2011 10 dhibcood lagu qiimeeyay filimkan waxa la siiyay daawadayaasha qiimaha badan 6.3 filimkiisa shanaad waa Villain oo la daawaday 2017 10 dhibcood lagu qiimeeyay filimkan waxa la siiyay 6.3 daawadayaasha qiimaha badan 5taas film ayaa loo soo xulay inay yihiin fishaal 5tiisa film ugu sheekada wanaagsan anagana waxaan ka soo xignay xogtan shabakada IMDb Rating markaas inoo dhan daawadayaasha qiimaha badan xogtii aan ka soo diyaarinay fishaal qosheel oo dabaaldega dhalashadiisa 44 sidaa daraadeed waxaan leenahay jalaagan dhalasho wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan dayta markay ku horeeyay channelka soo booqanayso fadlan subscribe noo saar sidoo kale muuqaalkan like saar lagta waxay nagu dhiirigelinaysaa muuqaalka inuu faafo saaxiibo wanaagsan uu gaaro sidoo kale muuqaalkan share si saaxiibo wanaagsan adoo kale channelka ugu soo xirmaan sidoo kale aragtidaada comment noogu reeb sidoo kale ha ka iloowin fadlan inaad muuqaalkan like saarto lagta waxay nagu dhiirigelinaysaa muuqaalka inuu fido YouTube ko dad badan gaarsiiyo intaan barnaamij la mid ah daawadayaasha qiimaha badan ku kulmeyno sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh